buura ma imid ayaan uga warramo waxaan war isaaq waa laba reero muxuu leeyahay waa runtii ala kulli xaal SNM baan ka tiriyay 8 qodob oo SNM waan ku riyooday markaan anu SNM deemaan joogin oo oday raac wadalaanahay dhulkana waa tidibku ka taagnay laakiin haatufuun baa ay warramay iyo marxaladihii iyo luqadihii lagu hadlayay markaan isku geystay waayo maskaxdu markay shaqaynayso wax badan bay daraasadeynaysaa ugu xukumayaan waayo waxay leeyihiin dadkay nala degan marka 8 qodob hordhacoogii araarta 8 qodob qaar waa oo dib baan kaaga sheegi doonaa araartan kuu sheegayna ana marka horena raadsaday oo hadda aanu gabaygii iyagaan u tiriyay ninkii war meeshaan idinka taaganahay warba uma haysid ana faqay moogta markaas uu 8 qodob soo baxay wuxuu yiri waxaan ku dhamaynay hawsha sharcigaan u dhigay ku dhuuxnay dadka taladeena hoose inaan ka ilaasho dheefta dhadhaarta wixii u dhaafsan inaan naqashada u diido dhaqaale hadduu u dhuunto la helay iyagoo dhex jooga ganaax iyo xadhi ku dhooji cadaalad dhammaystirkeegu sidaan u dhaqmayno weeye ciddii sharcigaa la dhowray sidiisa u dawri weyda dhirbaaxada xooggan saara xabaal baan dhaafi wey xabaashu waa tiisiyaad bar min 30 sano nin la fura warkeenna ciddii dhaliisha inuu qolo kale u dhaansho ayaa sharcigeenna doof haddaa tiraa warniyow sidaan wax loo wadaa sax maaha oo qarankuu diidan yahay awood baan soo dhirbaaxnay ciddii naga dhowrsan weyda ogaada halkaan dhigay ciddii naga dhowrsan weyda dhaliisho waxaan u dhiibno ogaada halkaan dhigay beelaha darifyada dhankoogu ha dhowraan dadkii dhammaaday waxbaa naga dhimanta dhaafa baroorta dhankiina qaad min had leedahay war in xisaabi oo aan waxa kule adeer kuwii geeduhu qabsadeen ee lagu soo gaaray oo yani wax jiid waxa soo mariyo ha beeraha darifyada dhankoogu ha dhowraan dadkii dhammaaday waxbaa naga dhimanta dhaafta baroorta dhankiina qaata sidaasaa noo dhammaysa wixii kale waa dhibteenna warkayga intii ka dhiman adaan kuu dhaafayaaye wixii iga dhiman dhammee waxbaa iga dhiman melihi sidaan u dhugo saxeexana ii dhamme waa hordhici 8 qodoba shirkii qaaxa ku qorna qodobka koowaad wuxuu ku leeyahay inaan ku ilaahdo kaalay dawlad baan wada korinaynaa wixii calaf soo kordhana anaa kelida iska leh hadduu shay kugu kamo awoodiisu waa ku tegi qodobka labaad wuxuu leeyr ku yahay dhaqaalaha kuu lulma inuu ii soo lalabo halkaan cabanayo waa la idlumay qodobka saddexaad waa xog